Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta waa idin salaame meel walba aad dunida ka joogtaan magacayga waa Xafsa haddee tahay markii kugu horeysa aad channelkii soo booqanaysa fadlan subscribe ii saar hore hadda ila joogta waa ku mahadsantahay maanta waxaa sameyn doona apple cake iyo sooskii lagu cuni lahaay aad iyo aad ay u fududahay wayna u macaan badan tahay isla socod wanaagsan. sida ujeedaan meeshan hadda waxaa ku haysanaa alaabtii aan ka sameyn lahayn keekeena weelka hadda waxaa ku shubaaya 150 gram oo badhar ah badharka ma dhalaalinaysid waxaa ku dari doonaa nus koob oo sokor ah kow waxaa isku qasi doonaa sokorta iyo badharka marka is dhex galaan waxaa ku dari doonaa 2 xabo ukun ah kadibna waxyaabaha khaleelka ayaa ku dari doonaa waa koob oo bur ah qaado oo vanilla ah iyo qaado baking powder intaas ayaa isku qasaya doorshada aad iyo aad ay u fududahay waqti badan markaa qaadanaysa 5 daqiiqo ugu soo tuuray inaba caadi ma ahan insha Allah waa arki doonaa ugu dambeyn sidee ku soo baxdo. sida ujeeda cajiinkeena waa diyaar waxaa sameysan doonaa tufaax ayaa jarjaraneynaa meeshan waxaa ii yaala 4 xabo tufaax waa soo dhaqay waa jarjaraa si siman u jarjaraa kadibna baaquliga ayaa ku shubaa kor waxaa kaga dari doonaa 2 qaado oo sokor ah iyo 2 qaado oo qarfo shiidan ah waa isku qasi doonaa markaa isku qasa kadibna cajiinka ayaa kor ka saaraa doolshadii oo soo diyaar weel kusoo shuba foornada waxay ku jiri doontaa 45 daqiiqo kor iyo hoos waxa u shidaa waxaana ku sameyn doonaa 175 degree ku sameyn doonaa insha Allah ugu dambeyn sida ku soo baxda waa isla arki doonaa inaba caadi ma aha hada sida u sameysatid safti ku noqonee kaaliska adag lagama sheekeyn karo tijaabiya.
hadda waa soo dhammeeyay tufaaxayga waa soo saartay calaa duul wuxuu aadaa foornada markuu kasoo baxo kadib insha Allah waa isla arki doonaa intay foornada ku jirto waxaa sameysan doonaa sooskii lagu cuni lahaa waxaa sameysanaynaa sooskan aad iyo aad ayuu u fudud yahay had weelka waxa ku shubayaa bakeeri caano ah nus bakeeri sokor ah qaado faniilo ah iyo qaado warango ah intaas ayuu ka kooban yahay 2 xabo ukun ah ukunta waxa isticmaal doona nooca jaalaha qaybta jaalada qaybta kale oo cadaanka ma isticmaalayo aad iyo aad ayuu fudud yahay koow caanaha iyo waxa dabka saari doona sokorta iyo faniilaha markay khandac yar soo noqdaan kadibna ukunta qaybteeda jaalaha iyo waxa isku dari doona iyo qaadada warangada waa isku qasi doona kadibna dib ayaa u celi doona dab gaaban ayaa ku karina markay cream noqdo ka dajin doona insha Allah waa arki doona sidii ku soo baxda ugu dambeyn soo celi dab low aan ku karinay aad u gaaban hadaa dabka iska dheereysid way ka gubanaysaa hadda waa diyaar cream ku soo noqoto waa diyaar yeesa ka gubanin dabka ku dheereenin badar yar ayaan ku darayaa ku qasaya kadibna waa ka dajin doonaa baaquli ayaa ku shubaya bac ayaa kor ka saara fridge ayaa gali doonaa si uu qabowdo insha Allah haddana waxaa ka soo bixin doonaa doolshadeena isla arki doonaa sidii ku soo baxday ما شاء الله تبارك الرحمن sidaan quruxda badan ayuu kusoo baxday doolshadeeni inaba caadi ma ahan sooskeeni sidaan qurux badan ayuu kusoo baxay markaa soo qaboojiyay kadib hadda waxaa soo saarayaa saxankii waa soo gurayaa inaba caadi ma aha doolshadan waa safti waqti badan ma kaa rabto waxyaabo badan u isticmaalaysid haddaa ilaa halaan soo gaarto waa kaaga mahadcelinaya fadlan hadduu fiidiyoon ku cajabi like iyo saar ra'yi haddaa qadi commenti kusoo wadaag like iyo share kana hanaga baqaylna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu